بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku ma yeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu fi inta bahan Allah deeqoynta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Muddo dheer kadib maanta saddex qodob baan ka hadlayaa. Qodobka koowaad waa safarkii madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay Kenya, kelmadaan ka oranaya colaadaha uu abaabulaya Muuse Biixi iyadana iyo marxaladda ciidanka ogna kelmadaan ka oranaya. shirka NCC ee lagu baaqayna isagana kelmadaan ka oranaya. aan ku hormaro Muuse Biixi wuxuu abaabulayaa colaad. wuxuu la jeedaa Muuse waxa uu shaqeyn weyday laba isku day oo hore, midkii sharcigu ahaa midna dagaalkii laascaanood buu ahaa. wuxuu labadaba ugu talagalay kursiga inuu iska fadhiyo oo xaalad degdeg ah ku jirnaa yiraahdo. markii la soo afjaray dagaalkii Sool, ciidankiisiina la kala diray, wax la qabto iyo wax baxsaday iyo wax dhintay loo qaybiyay. Muuse waa fakaray wuxuu isku qaaday xagga Ethiopia sheeko kale u bilaabay. ayadina waa shaqeyn weyn. wuxuu bilaabay sheekad sharciyada ah, maxkamadihii iyo waxa ka horiyay baarlamaanka iyadana waa laga faramarooji. wuxuu og yahay haddii doorasho la galo Muuse inuu ku daayay. si aan arrintaasi u dhicin waa inuu dagaal iyo colaad geliyaa dadka. ummadda waxaan ugu baaqayaa reer Somaliland, ninkaasi waa kursi doon, idinka dantiina ma wado, mustaqbalkiina dan kama leh, aayihiina dan kama leh. maxaabiista xiran isagoo ka hadlaya arki maysaan. intii dhaawacantay isagoo dhaawacoodii dabiibaya arki maysaan. isagoo dadka dantooda ka shaqeynaya arki maysaan. dhaqaalaha baaba'ay, isu socodku waa dhaqaale, baabuurtaa soconaysa iyo dhaqaalaha suuqyaha xirmay, dad aad u badan oo ganacsataa baa kacay, in badan baa iskaga tagtay oo faqri uga yaacday. dan kama leh. isagii caruurtiisu waa qadeeyaan iyo reerihiisu xogaaga contractiyada ah oo ay haystaan bay ku nool yihiin. waxa la wixii dalkaas soo geliyay iyagaa qaadanaya, cashuurta xooga ay dalka kaga qaadaan iyagaa leh, sida ay ka yihiin kuwa kaleba. maamul goboleedyadoo dhan saas wey. meel kasta ninka ugu sarreeya iska leh waa bakhaar isaga u furan, sandaqaduu leeyahay weeye. marka waxaan ugu baaqayaa qolyaha jiida degan oo dagaalku saameyn gaara ku yeelan doono, fakara oo tashada. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego Muuse, ciidamada fadhiya guumays aad bay diyaar u yihiin. horaan kuugu sheegay war nimankaa kama adkaan kartid. February 6 markaa xabadda riday, same day baan hadlay, waxaan kugu yidhi you are a loser, waa lagaa adkaanayaa dagaalka. maxaa yeelay nin ku diriraya xornimadiisa iyo gobonnimadiisa oo xaq ku diriraya, iyo nin gardarro ku diriraya oo le xoog baan cid ku maamulaya waa kuu dowladaynaya, ilaahay u kala roon, dagaalna lagu kala adag oo dadku u kala adkaysi badan. ma ujeeda reerkaasi waa reer dagaal waa galaan waana yaqaan, laakiin cidna inayna dulminayn, weerarna kugu ahayn. nasiib aad leedahay wey inaysan weerar iyagu hadda kugu ahayn oo aysan degaankaaga iyo dadkaaga qixinayn. waa nasiib aad leedahay, ha iska wasakhayn. war arrintaas ka daa, qaska ka daa. say u diyaarsan yihiin oo ay u sugayaan inaad weerar kale soo qaado si ay qaniimo horle iyo maxaabiis horle kaaga qabsadaan, uma malayn kartid. haddaba waa kuu digay, iska daa, ka daa dagaalka. odayaashu hadday qaban karaan ha qabteen, haddaanay qaban karinna ha ka tashadeen. ninkaas iyuu dagaal idin gelin. askartaas soo raacaysa adeer umayd socdaa tahay, reerihiinni iyo gurigiinni inaad joogto aad qatanaataa laguu qaataa intaad $100 u dhiman lahayd iyo wax la mid a. oo Muuse dagaal siyaasadeed ku gelin lahaa. 18 May wuxuu ku maro doorashadana uu ku baajiyo buu Muuse raadinayahay. qayb ha ka noqon. maxaa adiga danoo kuugu jira shakhsiyan? qayb ha ka noqon. reerkaasi duulaan idinkuma soo ahee, idinku duulaan ha ku kicinina. waxaan rabaa oo kale inaan saxo kelmad ciidamadii ka guuray laascaanood oo gaalka ayaa aaday. ciidankaasi sida ay ii xaqiijiyeen maamulka SSC waxay ku tageen ismacasalaameyn iyo is-afgarad iyo heshiis iyo waxaba yaraatay khilaaf ma jiro. mudday nimanku meesha fadhiyeen, caruurihii iyo xaasaskii iyo haweenkii in lagu noqdo mushkilo ma leh.
ciidanka meesha joogaana ka badan kuna filan difaaca aagga. midda labaad haddii loo baahdo oo ay wax dhacaan waxay diyaar u yihiin saraakiishii askartuba inay deg deg usoo noqdaan, laakiin reerayowgii iyo faamiliyadii in lagu noqdo ayaa loo baxay. waxyaabaha dacayaadka ahoo dhaqaalay waayeen iyo loo diiday iyo canshuur baa laga qaaday iyo waxaasoo dhan waa fake news, waxba kama jiraan. waxaa kaloo beena puntland baa xiratay baabuur ka soo degay dekeda oo laascaanood laga leeyahay oo ay leedahay maamulku leeyahay, xagga kama jiraan. iyaduna waa been. waxay ii sheegeen madaxdu in baabuurta qabaalka ahi ay mamnuuc ka yihiin inay soo degaan puntland muddo dheer ba ahaayeen. baabuur kastoo marka soo dega waa la dhigaa, dhinac baa loo leexiyaa, waa la qabsadaa ilaa la xaqiijiyo cidda iskale. wax haba yaraatee canshuura oo laga qaaday baabuurta dowladda SSC u socdaa ma jiraan, waa been abuur. wada shaqayntuna waa 100%. taasna kelmadaasna intaasaan ka oranaya. qodobka labaad, madaxweyne xasan sheekh wuxuu tagay Kenya. waa markee mindhaa waa markii 10aad. ruuto marna maynoo yimi may haye maxaa talaa? dowladnimadii madaxweynuhu wuxuu ka dhigtay safara oo isagu iska imaanayo dad guryahood oo xaafad uu degan yahay sideedii uu intaa taagan yahay. Kenya intaasoo jeer u tagay, Ethiopia intaasoo jeer u tagay, Eritrea intaasoo jeer u tagay, Djibouti intaasoo jeer u tagay, Uganda intaasoo jeer u tagay. labadan inoo waddankeena hal mar midkiiba yimi waa ama wax la mid a waa Ismaaciil Cumar Geelle iyo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed. inta kale cidina uma imaan. wuxuu madaxweynuhu hoos ugu dhigayaa qiimaha dowladnimada. hatagee muxuu la yimi madaxweynuhu meesha la Kenya? wuxuu yiri waxaanu imi amniga shir ku saabsan. aaway madaxdii amnigu hadday tahay wasiiro, hadday tahay taliyayaal, hadday tahay jeneraalo, khubaro amni aaway. madaxweynuhu sida kuwa kale oo dhan sidii bakhaar uu leeyahay inuu bagaash u doontay oo safar sidaa ugu aaday buu keligii socdaa. ciduu la shiray lama yaqaan, waxay isdheheen lama yaqaan. isagoo wax saxiixaya unbaa ajnabigu noo soo gudbiyaa. warka ay ajnabigu noo sheegaanna cali balcad baa wuxuu odhanayaa waa been, oo yaa noo caddaynaya inay been tahay. halka source oo aan haysanno madaxweyne markuu safro xataa wariyayaal baa la socda, iska daasha madaxe xataa wariyayaal baa la socda. qiimaha aad leedahay baad hoos u dhigaysaa haddaad reerka maalin walba ag taagnaato. waxaa jira waxa supply and demand markii ganacsiga la joogo. baahida iyo badeecadda diyaarka ah oo la heli karo hadday kala bataan, hadba dhinac ay u bataan baa qiimuhu u bataa. haddii badeecaddu badato qiimuhu waa yaraadaa. hadday badeecaddu yaraatana qiimaha bataa oo baahidu badato. baahidu hadday badato qiimuhu kor buu u kaca. haddaad maalin walba taagan tahay yaa waa lagu nacayaa, macna ma yeelanaysid, qiimo laguma hayo. mutual interest, mutual respect baa dowladuhu ku wada shaqeeyaan. madaxweyne campaignki horaa kaa khaldanaayo adduunka o dhan baan heshiis laahay, aragta inaysan shaqaynayn. markii horaan kuu sheegnay ma shaqayn karto. adduun wada heshiisii ma jiro. adduunka o dhan mutual respect, mutual interest, baahi maqnaysa ixtiraam labada dhinaca iyo kala danaysi labada dhinaca baa lagu wada jooga. dantaasaan ku siinayaa, dantaa isii. scratch my back, I'll scratch your back. dhabarka iyo xoqanaan dhabarka ku xoqe. ii danay aan kuu daneeye. ixtiraam aan ku ixtiraamay. haddaa iska ag taagnaatid. madaxweynuhu marka muxuu u yimi? ma amniga u yimi? runta safarkiisu 2 qodob wey. waa qodobka koowaad, madaxweynuhu wuxuu u yimi inuu ruuto ka dalbado, isagaana dalbaday, waana xaqiiq warkaas, inuu isaga iyo Abiy Ahmed heshiisiiyo. wuxuu ku daray oo suugo uga dhigay iyo soos ninkii dheeraa Afwerki in laga qayb geliyo wada hadalka. hadda ka hor baan idiin sheegay Afwerki inuu ballan qaaday haddii uu ku duulo badda Abiy Ahmed isaguna inuu difaaca wax ka gelayo. marka si ma garanaysaa uusan meesha uga bixin xabadaas. marka kelmadaas ah suugada waan ku ammaanayaa madaxweynaha inuusan ka tegin raggii difaaca diyaarka u ahaa. waxaa fiicnaan lahayd inuusan ninkaas meeshii hore uga soo degin oo ah ilaa aad ka tanaasushid oo aad ka noqotid wax ina dhex marayaa ma jiraan iyo wada hadal iyo isaarag. halkaa inuu taagnaado. ruuto hadda wuxuu America iyo adduunka oo dhan u sheegay isagu inuu yahay nabadoonka geeska Afrika
inuu isagu isu keenayo hawshaana dhammaynayo ma ujeeda qodobkaas qodob buu ahaa isagii Abiy Ahmed oo muxuu u raadinaya hadda inuu la heshiiyo maxaa yeelay maamul goboleedyadii oo dhan baa yaacay oo Itoobiya gacanta u galay madaxweynuhu meel khaldan buu garaacaya albaab khaldan buu garaacaya hadda rabtid madaxweyne inaad xallisid qadiyadan imaaraadka ka saar dalka imaaraadka ka mamnuuc wadanka dibadda u saar Itoobiya waxaa gacanta ku haya maamulaya amarka siinaya dhaqaalaha siiya ay ku nooshahay ku jirta talada iyo gacanta imaaraadku axsaan baad u qabtay dawlad walaalaheena oo laga gardaran yahay markii dalka laga eriyay adigu axsaan baad u qabtay iyo wanaag inaad soo celisay wax fiican inaad qabatay maxaa ka heshay maanta madoobe iyagaa saaxiib la way idin heshiisiin karaan ma rabaan dani iyagaa saaxiib la waa ka hadda dhex jooga isagana la aqoon cidda uu la shirayo iyo waxa uu saxiixayo iyo cid ka warhaysa wasiir la socda dawlad la socota maam sandaqad uu leeyahay isaguna u safray muuse bixi iyaga gacanta ku haya inay kugu diraan maahe kula heshiisiin mayaan ma ujeeda Abiy Ahmed iyaga gacanta ku haya inay kugu diraan maahe kula heshiisiin mayaan waxaan maqli jiray meel libax soo galay ma joogayso imaaraad baa yimi nabad baa la helayaa dowladnimada dhismaysa adana ku riyo taariikhdu been iskama sheegto wadan uu tagay oo wanaag ka geystay mataqaan muslimka oo dhan isagaa baabaasha mujrim mufsid ahwi inaad isaga marka soo dhawaysato oo ruuto iyo albaabadooda garaacdo waxaan ceeb ahayn kaala kulmayaan Abiy Ahmed wuu rabaa in la heshiiyo laakiin kelmadii ahayd ku dhawaaq inaad MOU-giis aad saxiixday January 1st aad ka laabatay Soomaaliyana sovereignty-geeda aadan muhaddad ku ahayn iyo weerar aadan ku ahayn kuma ku dhawaaqi maayo wuxuu ceshanayaa dignity isagoo waxba islahayn aad sababan xabadi ka socoto dalkii oo dhanna laga haysto madaxu ciidda ka ceshanaya maxaa kuu diiday adiguna madaxa ciidda ka ceshatid inaad sidii dowladnimo u dhaqantid stageka caalamiga ahaa sharaf yar baanu ka helnay dowladdii kaa horreysay oo ay Soomaaliya sumcadeeda iyo karaamadeeda soo celisay dhulkaa la jartay meel walba waa taaganta waa lagu munabeelaa inaad meel kasta taagnaatid qiimahaaga hoos u dhacay ma ujeeda qodobka labaad oo uu yimi madaxweynuhu wuxuu ahaa inuu shariif qalqaalsado oo maslaxado oo odayaal iyo qabiil u soo maro madaxweynuhu wuxuu isku soo aruuriyay dowladnimada oo dhan oo arkaa agagaarkaas uu degan yahay iyo Muqdisho iyo wixii ka jira shariifka ayaa kala muhiimsan dowladda maamul goboleedyada ay hayaan shariifka kala muhiimsan shariifka muxuu ka faa'iiday shariifku wuxuu sheegay war anigu dowlad maahay dowlad nin shacabana aniga hayla lagdamin ruuto iyo Abiy iyo dadka aad la ma garanaysaa dhigaaga aad la tartan wuxuu isku dheereynaya madaxweynuhu nin maamul goboleed haysta oo Soomaaliya ka tirsan iyo qof shacab ah oo ama madaxweyne ahaan jiray ama siyaasi hore ah ama wasiir hore ah buu madaxweynuhu la tartamaya leeyahay ninkaasaan ishaynaa ninkaan muxuu iga rabaa ma garanaysaa rag buu ii soo raacay waxaas dowladnimo maaha sheekh xasan sheekh waxaas dowladnimo maaha waxaas dowladnimo maaha ciyaalka xaafadda iyo ma garanaysaa qabyaalada iyo tolaaye waxaas dowladnimo hore kuu sheegay shariif wuxuu yiri dowladdan qabyaalad bay ku shaqaysaa intii un baad cadaysay maanta ma ujeeda waxaan la yaabay qodobkayga saddexaadna waxaad u yeertay shirkii NCC oo aad horey u diiday xilligaad rabtay baarlamaanka inaad camcamiso afartuba waxay diyaar u yihiin markay doorashadooda isku caano shubaan oo ay kaa danaystaan inay ku yiraahdaan waxba kama jiraan dastuur taas xaqiiq mid kaliya waafaqsan kuma jiro taas xaqiiq wey qoro warkaa meel dhigo hal nin oo kugu taageeraya ma jiro wixii aad samaysay oo aad ka bedeshay dastuurka oo qaarkood ay fiicnaayeen sida ra'iisul wasaaraha iyo saddexda xisbi iyo doorasho qof iyo cod iyo magaca madaxweynayaasha iyo kulli kuguma waafaqsan wixii fiicnaa oo aad samayn lahayd maxaad ula cararaysaa maadaa iska leh xagala geel wax gunti la geliye ka weyn dowlad baa la dhisayaa doorashadeedii dadkii lagala tashan lahaana waa lagala cararayaa guddi doorasho ma jiro anaa wada magacaabanaya 18 aan leeyahay dastuur maxkamad dastuuri ma jirto dastuurna waa laga hadlayaa cid lagu dacweeyay lama yaqaan haddii lagaa gar leeyahay oo dacwo lagaa qabo
baarlamaankii waxaysan aqoon bay baasinayaan oo gacanta u taagayaan maxaa yeelay kulli waa wasiir iyo been iyo lacag baa loo sheegay kuwii wasiirada gacmaha dhaadheer taagayay in badan oo kamidii way ogaayeen in been loo sheegay maxaa yeelay saddexna oo saaxiiba oo saddexdaba lagu yiri adaa lagu siinaya wasiirka oo saddexdiiba aan la siin ma ujeeda NCC markaad isugu yeertay qaar baad ka tagtay laascaanood horta ma ictiraafsan tahay SSC inay tahay maamul haddaad horey u ictiraaftay aad ku dhawaaqday inay kasoo qaybgelayaan shirarka maxaa uga reebtay maxay tahay ujeedada aad ka leedahay ka reebistooda markaad dastuurka baasinaysa waa ku darsatay maxaa hadda uga reebtay lama garan karo meelaa u socotid waxa uu afka ka yiraahda xasan sheekh iyo ficilkiisu isma waafaqsana abadan soomaali heshiisa aaway soomaali heshiisa adduunka heshiis la taas awalba ma shaqayseen xaqiiqadeediina waa la gaaray maxaa soo haray waxaa ku xigoo labaad laascaanood dadka jooga calankii soomaaliya babinaya waxay leeyihin midnimadaanu rabnaa qaarna hadday kasii baxayaan qaar horey dheheen waa uga baxnay kii hadda ku rabay baad adigu ka cararaysaa leedahay ka baxadnaa soomaalima kala diraysaa marka habartii gaabnayd inay dalka madax ka noqoto aad u diyaarinaysaa xasanow waxaad ku dambaynaysaa oo xaqiiqa qabso teendhadii afisyooni baad ku dambaynaysaa islaantaasoo farta kugu fiiqaysaad ku dambaynaysaa maamulkaaga oo kusoo koobmay meeyarka muqdisho iyo agagaarkiisa baad u jeedaa waxaad ka qabanaysa lama arko tacab samaysay boobtay wixii la boobi karay ciidamadii burbure argagixisadii hubkii adduunka ugu badnayd baad gacanta u gelisay xaggee wax u wadaa ma la gaaray xilligii aad dhihi lahayd shariif baa wuxuu ohan jiray markaanu kale stop ma la gaaray xilligii stop haddii la gaaray adeerow dalka ha burburine haddii aadan wadi karin ma wadi kartide dal laguma wado safar iyo orod iyo isolation waxaa ka cararaysaa frustrationka iyo buuqa ka hor yaalaad ka cararaysaa markaasaa maalinba wadan rabtaa inaad marti ku ahaatid xoogaa dhaqaalana ku uruursatid oo ku qaadatid sahay safar waxaasi dowladnimo maaha kolley 2 sano hadda waa ka badbaadaynaa dalku waa harayaa waxaad qaadan kartana waad qaadanaysaa insha allahu 2 haray 2 kadibna waa lagaa tashanaya ummaddu ku aragtay inay markii hore kugu khaldameen nimankaas xoolaha ah weligay baarlamaanka liita baarlamaanka hadda samaysan oo Soomaaliya leedahay kii waxaan arkay shariif inta la yiri ku soo darso 275 ogolaaday kaasaan arkay wax ka liita iyaguna waa ogolaan lahayn wax walba ay ogoliin waxay baasinayaan xeer iyo sharci aysan arag akhriyin xagee lagu ark marka iyaduna xasanow NCC heshiis kulama aha kulama socdaan kulligoodna waa kaa baxayaan maxaa kuu talaa hadda sit down settle down fariiso salmugi tasho la tasho raadso la heshii dadkaagii soo aruurso hadday dani kuugu jirto haddii kale teendhadaas baa inoo ballanaa afisyooni billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh